gabar muslimad ahayd ayaa xilligii uu muctasim billaah maamulayay muslimiinta waxaa dhibay qolo gaal ah. markaasay tiri muctasimkaygiiyow. markii uu muctasim arrinkaas maqlayna wuxuu diyaariyay ciidan, midkii ugu horeeyay iyada agteeda uu joogo, kii ugu dambeeyana isaga agtiisa uu joogo. wallaahi waqti ayay ahayd. kusoo dhawaada ilma xawaa barnaamijkeeni duni dumar. duni dumar waa duni aad u ballaaran, waana dunida aynu maanta ku noolnahay. dumarku waa naxariis, waana wehel. ma ogtaa in nebi aadam calayhi salaam xitaa jannadii uu ku dareemay wehel la'aan ilaa ya markii dambe loo keenay xawaa. barnaamijkeena haddii aan sii guda galno mawduucana maanta waa isku filnaansho. sideedaba dumarku markii ay gabar tahayna waa xijaabkii naarta ka xijaabi lahaa aabaheed. markii ay hooyo tahayna jannadii ayaa lugaheeda hoosteeda ku jirto. markii ay xaas tahayna waa midii uu ninku rag ku noqon lahaa iyada ixtiraamitaankeeda. markii ay walaal tahayna in la xiriiriyo ayaaba waxay tahay cibaadada. laakiin noloshu ma caqabada yara. marna waa dhanka aqoonta ay gabdhuhu waxay kala kulmaan caqabada aad u tiro badan, marna waxay kala kulmaan dhanka hantida ama reerka iyo caruurta dhankii ay ahaato. sidaadaba dumarku waxaan ku tilmaami karnaa libaax la xiray, ma dhaheeno libaax hurda, waayo iyagu ma hurdaan ee waxa xiray dhaqanka. dumarka sidooduba qof ma karaameyn jirin ilaa iyo wuxuu ahaa qof wanaagsan, qofna ma liidi jirin ilaa iyo wuxuu ahaa qof liito. waxa ogaataa dumarka dadka liida inay yihiin dad gudahooda ka dareemaya nuqsaan, ha ahaato jaahilnimo ama ha ahaato qof raganimo nuqsaan dareemayo, rabo inuu iyada ku xadgudbo, ku dareemo weynaan iyo wax wanaagsan inuu yahay. nabigana waa tii yiri sallallahu alayhi wasallam rifqan bil qawarir, ha loo dhimriyo qaruuradahan dhalooyinka. nabigu wuxuu ku tilmaamay dhalla inay tahay oo u baahan ilaalin iyo naxariisasho. sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma karaameeyo dumarka ilaa iyo qof karaamaysa mooyaane, mana liido ilaa iyo qof liita mooyaane. meeshaas waxaa noogu filan dadka dumarka liido inay yihiin dad aqoon ahaan iyo wacyi ahaanba dad liito. dumarka mar walba ay wax qabtaan waxay ahayn dad waxa ay qabanayaan si weyn u suga. haddii ay noqon lahayd aqoon oo taymiye ay noo tahay tusaale, caaishana ay noo tahay xadiidkii iyo fiqigii qofkii tusaale u ahaa. haddii ay ganacsi samaynayaan oo ay khadiijo tusaale inoo tahay radiyallahu canha. sidoo kalena aan bal hal mar tusaale soo qaadano gabdhihii oo boqor ah oo maamul ah. saba waxaa maamul ka ahayd Balqiis. nabi Suleymaan calayhi salaam waxaa u soo sheegay sheekadan aan wada garanayno shimbirkii hudhudka ahaa. wuxuuna ku yiri meeshaas waxaan ku arkay qolas caabudaysa qoraxda una sujuudayaan. nabi Suleymaan calayhi salaam hudhudkii wuxuu u dhiibay warqad asagoo u diray boqoradii Balqiis ahayd. Balqiis markii warqadii loo geeyay warqadii furtay waxay aragtay in warqadu ay ku qoran tahay innahu min Suleymaan wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimiin. markii warqadii akhrisay waxay gabar aad u xikmad badan raggii la talinay iskugu yeertay. waxay ku tiraahday dhageysta, boqor naga awood badana wuxuu noo sheeganaa inuu naga awood badan yahay, nabina uu yahay, boqorna uu yahay. maxaan sameynaa, maxaan ka qabanaa? ayada waxay haysataa miisaan ah qofkan nawacanayo ee noo imowna leh waa qof boqorna ah nabina ah. يعني هادو بقر أهان لها كليته وحبي أهان لهاد مركو النبي أهان لهانا وحبي أهان لهاد. nimankii waxay ku dhaheen iyagoo aanan sheekadii dhan wanaajinin ama aanan dhan kasta ka fiirinin awoodan leenahay waan naqaanaa ragga sida badanaa u isticmaalaan naxnu uluu quwwa wa uluu ba'sin shadiid, anaga xoogaa leenahay. marka waxay ku dhaheen anaga na amar kaliyato waan dagaalameynaa. Balqiis waxay qof aad u xigmad badan waxay tiraahday sug hadiyadan u diraayaa waxaan fiirinayaa wixii ka soo baxo. hadiyadii ay dirtay hadiyadii markay u dirtayna wuu soo celiyay nabiyullaahi Suleymaan calayhi salaam weliba asagoo si u dhow la cadeeyay ninkii. waxaa la yiraahdaa Balqiis meesha ay qiimeynayso waxay ahayd hadduu dhaqan wanaagsan ninkan hadiyada loo dhiibay, dhaqan wanaagsan haddii uu kala soo kulmo waa nabi, haddii hadiyada uu qaatana waa nabi aanan boqor ahayn. haddii uu hadiyada soo celiyo laakiin dhaqan wanaagsanna uusan sameynin waa boqor laakiin nabi ma aha. haddii labadiiba uu sameeyay hadiyadin uu soo celiyay dhaqan wanaagsanna uu sameeyay isla markaana wuxuu noqday
nebi iyo boqor. Marka waxay tiri ninkan nin aan la dagaalami karno ma aha. Qoomkeedii iyada ayagoo wada muslimiin ah ay soo laabteen. Marka sheekadan waxa ugu muhiimsan waxa waaye Balqiis markii ay nimankii la hadlaysay waxay ku tiraahday wax ma ogidin idinku haddii qolo soo gasho meel kale oo ay la dagaalamaan waxay ka dhigayaan dadkii ugu cizada badnaa dadkii ugu liitay. taas ayayna qoomkeedii u diiday. Balqiis waxay tusaale u ahayd dumarka oo dhan. Sidoo kale dumarkeena Soomaaliyeed waxaan u haysanaa tusaalooyin aad u tiro badan. Gabdhaheenu waxay ahaayeen halyeeyaal. Waxaa ka mid ah Xaawa Taako oo dhimatay iyadoo cadowgii ku sii socota. Sidoo kalena waxaa ka mid ah Asli oo ahayd gabadhii Afrika ugu horeysay ee diyaarad military pilot ka noqota. Sidoo kale waxaan haysanaa gabdho tiro badan oo dhan kasta ka soo muuqda sida caafimaadka, siyaasadda, pilotnimo iyo horumar kasta oo maanta dunidu gaartay. Iyadoo intaas ay jirto oo dumarkeena waxqabadkooda uu yahay mid muuqda oo dhan kastana laga arki karo oo la taaban karo waxqabadkoodii, ayaa bulshadeenu waxay weli aad ugu liidataa dumarka in ay karaameeyaan. Dumarka waxaan u eegnaa eegma liidato insaan darajo labaad ah oo kale. taasna waxay caqabad ku noqotay jiilka maanta nool iyo jiilka soo koraya oo maanta haysta tiknoolajiyad arki karana caalamka oo dhan si fudud inay u arkaan dumarkii caalamka inay yihiin dumar wanaagsan, wax qabta, is-hormariya. Dumarkeenana lacagtii yaanyada ay kusoo gedi lahaayeen ay la dhiban yihiin. taasna waxay niyad jab ku ridi kartaa gabdhaheena yaryar ee soo koraya. waxaan isku dayaynaa in gabdhaheenu ay noqdaan dumar sareeya. barnaamijka Duni Dumarna wuxuu faaqiidi doonaa dhammaan dhinacyo kasta oo ka mid ah nolosha dumarka. Wassalaamu calaykum.